laba malag baa qofka qabriga dhexdeeda ku sugaysa deedna way soo fadhiisinayaan waxay weydiinayaan saddex su'aalood man rabbuka man nabiyuka ma diinuka rabbigaagu kumuu ahaa baa la odhan doonaa ayaa ku rabbaynayey ayaa ku arsaaqayey ayaad macbuud ka dhigatood caabudaysay ayaad baahidaadiiyo baryadaada u sheeganaysay man nabiyuka nebigaagu ayuu ahaa mucallimkaaga ayuu ahaayo ayaad dhaqan iyo maaragtaane iyo nolosha ku dayashadeeda ayaad kaga dayanaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd baa la odhan doonaa marka qofkii muuminkii ee adduunka dusheeda ilaahay ku soo caabuday ee adduunka dusheeda ilaahay ku soo yaqaanay ee adduunka dusheeda ilaahay ku raalli gelinayey ee adduunka dusheeda nebigiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii iyo sunnadiisii la yimiday waxau odhan doonaa rabbigay waa allah diintayduna waa islaam nebigaygii waa muxamed calayhi salaatu wasalaam waa rasuulkii ilaahay buu odhan doonaa kanaad i weydiinaysaan waa rasuulkaygii muxamed calayhi salaatu wasalaam waa ka ilaahay qur-aanka ku lahaa yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira wayudilu allahu aldaalimiina wayafcalu allahu maa yashaa ilaahay caza wajalla dadkii mu'miniinta ahaa ee adduunka dusheeda ilaahay kaga soo cabsan jiray ee adduunka dusheeda ilaahay ku baryi jiray ee adduunka dusheeda ilaahay ku raalli gelin jiray dariiqa nebiga soo raacay ee diintooda islaamka intay barteenna ku dhaqmaya ka shaqaynayey saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa u fudaydin doono ilaahay baa qowlka xaqa ku sugi doona baa la yidhi leanna su'aalaha mu'minku markuu ka jawaabo ayaa xagga samada laga dhawaaqi doonaayoo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkayga run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaado u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaado u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura baa la odhan doonaa halkaa jannadiisii ha ka daawadee deedna qabriga dhexdeeda mu'minku uu ku seexanayaa jiifka qabriga dhexdeeda mu'minku maalinta uu ku jiifsado maalinka waa beriga qiyaamaha unbuu qabriga ka soo baxayaayo ogaada halka kii kale kaafirkii ama faajirkiina su'aal kastoo la weydiiye wuxuu ku jawaabi doonaa laa adri laa adri kama warqabi buu leeyahay kama warqabi buu leeyahay deedna markaasaa la odhan doonaa laa darayta walaa talayta walaa htadayta ereyga iyo su'aasha qabrigee lagu weydiiyey ilaahay xaqa kama dhawaajiyo ilaahay dariiqa xaqee mustaqiimkana kuguma hadeeyo laa darayta ilaahayna kuma ogeysiiyo malaa'igtu madaraq xadiida ayay wadaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka mar hadday ku dhiftaan dhulka ayuu 70 xusul buu dhulka quusaya ayuu galayaa deedna inta uu ka soo baxayana madaraq ay soo qaadanayaan way ku celinayaan cadaabkiisa ilaa qiyaamaha waa sidaasuu rasuulku yidhi marka cadaab alqabriga allah inaga badbaadiyo walaalayaal qofka waxa soo socda aanan ogeyn waxa maanta adduunyada ka dhacayana ma ogaan kari ogow waa meesha soomaalideennu ay tidhaahdo waxa soo socda qofka aanan garan waxa joogana maanta ma garto labadan indhood ee kugu taalla ayuha almuslim ayatuha almuslima labadan indhood ee kugu taalla waxaa loogu talagalay in la adduunyadaada ku eego in la aakhirada ku eego meel dheer ka fikir oo ilaahay caza wajalla ha halmaamin annaasu niyaamun waidaa maatuu intabahuu dadku way hurdaan maanta way hurdaan goormay jeefkii hurdada ka kacayaan maalintay dhintaan ee qabriga la geliyo qof walba hurdada ka soo kici doonaa laa qabiil baa ku raaci walaa ubad baa ku raaci walaa dhaqaalaa ku raaci walaa siyaasad baa ku raaci walaa jaamacad iyo dibloomkaad dhiganaysay baa ku raaci walaa aqalladaad dhisatay baa ku raaci aaway dadkii magaaladan asaaska u ahaa ayaa dhisay ee soo asaasay may cidba kama noolo maanta halkaa iyakuba ay mareen baan innakuna ay mari doonaa marka adduunyadan inta aan joogno 60 sano 70 sano layna soo siiyey ilaahayna abuuray han caabudno oo ilaahay ha ka cabsanno oo cabsida ilaahay haddii laynaga helo walaalayaal nolosheenna adduunyada ku barakoobi walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard qaryad walba dadkaygu hadday ilaahay aaminaan oo ilaahay ay ka baqaan hadday ilaahay aaminaan oo wixii ilaahay wanaagay farayna ay la yimaadaan oo ilaahay ka baqaan oo macsiyada xaaraanta iyo fisqiga iyo fujuurka ay ka baqaan oo cadaabka ilaahay daba socda ay kaga baqaan barakaatu samaa'i wal ardi baan u furaynaa baa ilaahay maxaa maanta ummadeennu marna la qaxaysaa marna la cabsoonayaan mar abaar noogu dhacaysaa mar qaxooti u noqonayaan wax kale maaha walaalayaal waa dunuubta innaku aan geysanay weeyaan wamaa asaabakum min musiibatin
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إلهي بقرآن إنه وشيء قاله أدونك كركيك أنت جوكتان بلاية مصيبة نقوم دعضو إلا بلاية مصيبة هذين نقوم دعضو وواحد قعمه نكون جيستين بإلهي هذا أنت بدلنا وبنقع فينا بإلهي ونقوم صوع لنا عقوبة دين إلهي والرحيم وأن حريص بدنيه إلهي ونون حريص أمر والبا والرحمة ديسا ورحمتي سبقت غضبي إن رحمتي تغلب غضبي ورحمتي وسعت كل شيء آبهن آدم عليه السلام markii suuradiisa la sawirey la joojiyay ee ruuxda lagu afuufay baa la yiri indhaha wuxuu ku hayay baa la carshigu eegaya la yiri wuxuu arkay aayada quraanka oo carshiga ku qoran aayade in warahmati wasi'at kull shay ilaahay baa la naxariistayda ayaa wax waliba ka ballaaratay baa ilaahay waa rahmaan waa rahiim waa ghafuur waa shakuur waa afuw waa kariim وحليم وستار بالمقعد إلهي إيك والرحمن أدونك أنت اللي جوغو وكان حريستي سو خلايق دونان أي قادي قالك كنا حريستي سو كسي حنيو قالك كنا لين مارتان حريست إلهي الروبك وقود آيو قالك دلين ونبت قليدا وقو عيار آيو قالك كنا لين بيها وكو عب آيو قالك كنا لين هاودي أكسجينك وكو هلايو والرحمن إلهي عز وجل الرحمن سقالي سقاشك مقع إلهي مقع اسم الذات مويانا مقع الله بعد السفوي كوحيقا الرحمن بالله بلا الرحمن وكان الرحمن دي سعالم كودنا أيوة قادي بقولنا حريصة إلهي جل وعلا أيو أبو ريب النبي قيلي هل رحمة أدونك إلهي أسودا دعيي سقالي سقاشك كرنا مالك قيامها أيا إلهي أدكتو أدوميه مؤمنين إلهي قلنا حريصا دون أبو رسول صلى الله عليه وسلم hal naxariisa ayaa khalaaiqda adduunka oo dhan deeqday oo gaadhay oo hooyadu ilmaha ugu naxariisanaysa oo libaaxu ilmihiisa ugu naxariisanaya oo dhurwaagu ilmihiisa ugu naxariisanaya oo bisadu ilmaheega ugu naxariisanaysa oo ayadu ilmaheega ugu naxariisanaysa oo shimbirtu ilmaheega ugu naxariisanaysa hal naxariisa adduunka oo dhan oo gaadhay walaalayaal 99 kale waa maxay waa naxariista ilaahay maalinka qiyaamaha addoomihiisa muuminiinta iyo gabdhaha muuminaadka ilaahay ugu naxariisan doono weeyaan الرحيم الرحمن الرحيم العفو عفو معناه waa maxay waa kamar walba addoomihiisu dambi kasta ay galaan aana ku qabana iska dhaafo weeyaan naxariista ilaahay waxa kamid ah la yiri malaga khayrka qoraya khayr markaad sameeyso ama khayr aad ku hadasho isla markaaba uu qoraaba la yiri laakiin malaga dambiga qoraya markuu gaf ka dhaco هذا يرى ما لا يعني يا كادعي إيش أيام القلة كاقد دعدي دكت أيام وحير قلة أيام مغشي قفف كاير يرى كادع مركو دم كادعو ملق ذنوب تقرا مركو هذا قرتد ملق خير كقري يبقى كله كجو هقرين سببتها معي بالله إلهي